ninkani Steven Kushner wuxuu isarkay isagoo maraya wada ilaa habeenkii Ameerika dhexdeeda. Lugihiisa ayaa waxay ku xoqmayaan kabihiisa kuwaasoo aad u gubayay. Xanuunka ayaa wuxuu ahaa midka isaga soo jeedkiisa ka shaqaynayo. Wuxuu ogaa hadduu istaago inuu qabowgu dilayo. wax xasuusa kama uu haysto sababta meeshaan keentay. Wuxuuna aad uga cabsanayay waxa mustaqbalka ku dhici doona. meel fog ayuu wuxuu ka arkay iftiinka gaari soo socda isagoo aad u naftuurayo. Saa'id ayuu wuxuu u rabay inuu markaasi gaarigaasi arko si uu lugihiisa daalan u nasiyo. laakiin Saa'id iskuguma kalsoonin inuu gaariga u istaagi doono sababtoo ah gaariyaashii ka horeeyay dhan xoog ayay ku dhaafeen. Hal mid oo arkay ma ahine kaasoo hoonkiisa intuu ku shiday dhaafay. laakiin markani aad ayay uga duwaneed. gaariga si tartiib ayuu u socday. ugu dambeynna waa uu istaagay markii uu arkay wiilka meesha taagan. waa habeen aad u xun inaad keligaa lugaysid ayuu dhahay ninka gaariga ku jiro. Joyce Malihi ayaan ka cabsanaya ayuu dhahay. kadibna indhihiisa ayuu yareeyay isku dayay inuu arko. waa habeen aad u qabow mana ogi meesha aan u socdo ayuu ku jawaabay. soo fuul haddaba ayuu dhahay ninkii. gurigayga kama foga meeshan waxaana ku siinayaa firaash iyo cunto si aad iigu qabatid hawl aad u yar. Steven aad ayuu u farxay. Tan waxay aad wuxuu caawa dhan rajaynayay laakiin dareemihiisa waxay u sheegeen inuusan gaarigaasi uusan fuulin. soo fuul dhaqso ayuu dhahay ninkii isagoona Steven jaanis uu ku fikiro uusan siinaynin. Steven aad ayuu u dhaxmaysnaa saas darteed ma uusan awoodin inuu ka fikiro. mahadsanid mudane, mahadsanid. magacayga waa Tom, hana ka walwalin. waana u baahanaa qof cusubana soo booqdo. xaaskayga baryahan marti ayay Saa'id ugu baahneed ayuu dhahay odagii. arrintaa markuu maqlay Steven qalbigiisa ma uusan degin. gaariga dhinacuu ka fadhiyan iskumuu nuuxnuuxin intuu gaariga u socday gurigii beerta. guriga beerta wuxuu noqday isla qadiimigii uu ku fakarayay Steven inuu noqon doono. gees waxaa kaga yaalay maqsin waxaana u dhowaa gurigii yaraa islaanta iyo odagiisa ku nool yihiin. geeskana waxaa ka xigay guri dooro oo aad qadiimi u ahaa oo yaraa. meesha u deexa ka xigana waxaa qarinayay meesha xoolaha lagu hayo. gaariga markay ka soo baxeen urka markaasi khaansiirka ayaa hawadiyo dhan isqabsatay. markaasna maradiisa ayuu sanka ku qabsaday si uu urka iskaga ilaaliyo. ha ka walwalin urka ayuu dhahay odagii. waxaan kuu sheegayaa in urkaagu uusan aniga i dhaamin. markaas Steven wuu ku raacsanaa arrinta maadaama uu maanta dhan soo socday waddada. intuu ku soo socdayna Ilaahay baa og. guriga markay soo galeen odagii wuxuu u sheegay Steven inuu ku fariisto qolka cuntada. markaasna xaaskiisa ayuu u yeerayaa si ay u kululeeyaan hilib markaasi soo haray. markii uu gudaha u soo galay Steven qolkii cuntada waxa uu aad ula yaabay sida aadka u fooshaxan ee qolka u sharaxeen. wuxuuna markaasi maqlay odagii oo jikada ku jiro lana hadlaya qof uu u maleeyay inuu xaaskiisa yahay isagoo ku hayo waxaan soo helay qof cusub waxaanan u malayn doonaa inuu aad noo anfacayo. arrintaasi Steven aad ayay u cabsi gelisay. wuxuuna rabay bartaas inuu ka noqdo oo cararo balse gaajada haysa ayaa waxay u sheegtay inuu wax cuno ka hor kadibna uu iska celiyo haddii ay soo weeraraan. odagii ayaa qolka ku soo laabtay isagoo gacantiisa ku wada digsi aad u weyn oo cunto ku jirto. gadaashiis waxaa socotay islaan daciifa taasoo isaga haysatay. waxaanu markaasi u caddaatay Steven inay islaantani indhoolo ahayd. way isbareen kadibna cuntadii ayaa la qaybiyey. Steven oo aad u daalan islamarkiiba wuxuu bilaabay inuu cunteeyo si uu gaajadiisa iskaga bi'iyo sidoo kalena u kululeeyo lafihiisa qabowga dareemaya. daqiiqada kadib Steven waa uu dhamaystay cuntadiisii. kadibna markii uu eegay wuxuu arkay labadii cajuusood inay markaasi daciif noqonayaan. ugu dambeynna mugdi maahae wax kale muuse arag. waa waqtigii ayuu dhahay odagii isagoo kicinaya Steven. saacada ayaa kasoo wareegay. Steven wuxuu arkay isagoo ku jiifa fadhiga. qolkana wuxuu ahaa qolkii fadhiga. isagoo yaabanaya wuxuu yidhi maxaa tiri waqtigee ayaad ka hadlaysaa? xilligii quudinta ayuu dhahay isoo raac aniga. Steven oo weli daalan ayaa lugihiisa isku qasbay inuu ku istaago. kadibna odagii ayuu dabagalay. isla markiiba waa seexatay xalay ayuu dhahay odagii. waxaan u malaynayay inaad xanuunsan tahay balse hurdadaada ayaan ka dareemay inaad aad u daalneed. haa ayuu dhahay Steven. iga raali noqo ma aqaan waxa igu dhacay. waa caadi ayuu dhahay odagii. waan kuu dayn lahaa inaad iska sii hurdid laakiin waan kuu baahannahay. odagii wuxuu furay albaabka weyn ee meesha doofaarka lagu hayo. Stevenna waa uu suuxi gaaray urka meesha ka soo uraya darteed. alla ilaahayo ayuu dhahay Steven oo ku facaya. meeshan ilaahay ma joogo. doofaaradani waa shayaadiin caadiya ayuu dhahay odagii.
kadibna wuxuu arkay inay meesha ku jiraan doofaaro aad u tiro badan ilaa iyo 100 gaarayo, kuwaasoo saa'id u koray, wada qaylinayo, dhammaantoodna ay xaarkooda ku wada jiraan. Waxa ay qarinayeenba meesha ay ku dhex jiraan tiro badni awgeeda. Waa xilligii quudinta, ayuu markaasi odagii dhahay. Way garanayaan markay arkaan in wax la siin doono. Markaas ayuu Stephen naxay. Maxaa la siiyaa ayuu weydiiyey. wax walba ayuu dhahay odagii. Wax walba way cunayaan, xataa haddaan u keeno sac aad u weyn, daqiiqado gudaheed ayay ku dhammaysanayaan. Ma taas ayaa ah waxaad quudisid ayuu weydiiyey Stephen, asagoo markaasi hubin inuu ka heli doono jawaabta. Maya, wax saa u weyn maahan, waa inaan ku ekaadaa salool iyo haruur ayuu dhahay isagii oo furaya meel, taasoo ka soo daadinaysa wixii ay quudsan lahaayeen doofaaradu, kuwaasoo ay badisay qayladoodii horay dhagaha dadka uga jabinaysay. Stephen wuxuu daawaday isagoo aad u naxsan, asagoo arkay doofaaradii isku tumanayo si uu mid walba cuntada markaasi u helo. Fakar dheer kadib ayuu dhahay odagii isagoo meesha cuntada ka soo baxaysay xirayo. Cuntada way sii dhammaan rabtaa, anigana ma rabo inaan hungurigayga weynaado. wuxuu arkay waxay ku kaliftay maskaxdiisa inay dib u soo xasuusato markii kuwa lacagta leh iyo kuwa awoodda leh ay markaasi dhulka ka tagayeen. Rag iyo dumar iyo carruurba waa lagu tuntay, waa la garaacay, waana la xabadeeyey si waddo lagu baneeyay kuwa la doortay. Dad yara ayaana meesha koray. Dadka ugu xun ayaa maalinkaasi soo cadaaday kuwa ay yihiin. Arrinta murugadaana waxay tahay inay kuwa ugu xun yihiin kuwa badbaaday. Inta yarta ay la doortayna ayaa hadda waxay ahaayeen mustaqbalkii aadanaha. Stephenna dadkaas ayuu isaguna ka mid ahaa. Isbuucyadii xigay Stephen wuxuu u shaqaynayay ninka beeralayda, asagoo markaasi taa ku bedelanayo meel uu seexday iyo cunto. Odagana wuxuu u sharaxay si ay beerta isku bedesho xilliyada xun, mana uusan hubin inta ay sii jiri doonto beerta. Stephen wuxuu bilaabay inuu farxo mar kasta oo loo baahdo, wuuna iska daayay cabsidii uu ka cabsan jiray odaga, wuuna nasan karay mar kasta oo keligiis yahay. Taas ayay ahayd ilaa markii laga gaaray maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin waxa uu yimid beerta asagoo u eg inuu meesha iskaga soo lumay. Markii hore way adkeyd in la arko wejigiisa, taas ayay ahayd ilaa uu markii iftiinka soo istaagay. Stephenna aad ayuu u naxay markii uu gartay in ninkan indhihiisa uu dhiig ka soo daadanayo. Xaggaas istaag ayuu dhahay Stephen, tani waa hanti khaasa, waxaad u baahan tahay inaad tagtid. Aniga khatar ma yihi ayuu dhahay ninkii isagoo si naxariis leh u hadlaya. Aniga waxaan u imid xaggan inaan kuu digo. Labada cajuus waxa ay go'aansadeen inay adiga kuu quudiyaan, markaasna ku siiyaan doofaarada. Maxaa tiri ayuu dhahay Stephen isagoo aad u naxsan. Taasi waa been, labadoodu way jecel yihiin inaan xaggan joogo sababtoo waan caawinayaa. Adiga waad caawinaysaa, maya waxaan ka wadaa waad caawin doontaa. Stephen wuxuu rabay inuu madaxa ku dhufto ninka, balse wuu ogaa inuu runtiis yahay. Wuu ogaa labada cajuus inay rabaan isaga inay u dhameeyaan. Ninkii Stephen ayuu u dhoola cadeeyey, wuxuuna ku dhahay Fiiri, magacaygu waa Blaaka. Ani xaggan waxaan u imid inaan kuu digo. Isoo raac, waxaana markaasi kuu kaxayn doonaa meeshani meel dhaanta. Stephen markaasi ninka indhihiisa ayuu eegay. Intuusan la hadlin ka horna odagii ayaa markaasi u yeeray. Markii odagu u jawaabay kadib, ninkii ayuu gadaal u soo eegay, maba uu joogaba meesha. Kadibna Stephen wuxuu isweydiiyey inuu run ahaa iyo in kale. Habeenkaasi Stephen waqti uu caadi ahaan iska hurdi jiray waa uu soo jeeday, indhihiisana sayd ay u kala furnaayeen isagoo soo xasuusanaya arrimihii uu ninkii ku yiri. Asagoo bartaas iska jiifo ayuu markaasi wuxuu maqlay labadii cajuus oo dhinaca hoose ee guriga ku sheekaysanayo. Hadalkooda wax yar ayuu ka fahmay, balse wuxuu gartay inay wax weyn u qorsheynayaan markii uu maqlay iyagoo magaciisa sheegayaan, ayagoo markaasi ku haya waqtigii ayaa la gaaray iyo sidoo kale beri subax markii la gaaro aniga ayaa xalin doona arrintaas. Markii uu maqlay intaasi waa uu seexan waayey asagoo aad uga feejigan waxa soo socda. Subaxdii xigtay Stephen waxa uu soo kacay intiisa qoraxda soo bixin sida caadiga ahayd. Odagii ayaa ka soo horbaxay isagoo ku hayay nakeen doofaarada ayaan quudinaynaa. Stephen oo yaaban ayaa wuxuu weydiiyey marka horese uma baahnay inuu weelashooda biyo ugu shubo. Taas ayay ahayd shaqadiisa markii uu saa u soo kaco uu samayn jiray keligiis markuu yahay. Maya ayuu dhahay odagii, hadda ayaan kuu baahanahay inaad aado meesha doofaarada. Stephen oo ka labalabeynaya ayaa odagii dabagalay, waxayna soo galeen meeshii doofaarada. Hawadu sidii caadiga ahayd way ka cusleed. Stephen wuxuu bilaabay inuu gariiro isagoo og waxa dhici doono. Haruurkii shalay ayuu dhammaaday ayuu dhahay odagii, waa aynu dhiman doonaan intaan la gaarin waqtigii la kala iibsan jiray doofaarada. Anna ma rabo midaas, saas darteed waxaan u baahanahay inaan sameeyo dhiigdaadin. Intaasba markii uu dhahay odagii waxa uu ka soo saaray jeebkiisa mindi aad u weyn. Dhinaca Stephen ayuu u soo dhaqaaqay. Stephen isla markiiba gacanta ayuu ku dhuftay odagii ayuuna ku soo booday.
maxaa samaynaysaa ayuu dhahay odagii beeraleyda. intaada idilin ka hor ayaan ku dilayaa ayuu dhahay. kadibna odagii ayuu wuxuu ku tuuray meeshii doofaaradii gaajeysnaa. meeshoo dhan waxaa isqabsatay qayladii doofaarada iyo sidoo kale odagii la cunayay. waxa uuna ku baaba'ay odagii jirkiisii oo dhan ilbiriqsiyo gudaheed sababtoo doofaaradii oo dhan ayaa iskugu tegay. Stephen waa uu daawanayay inta markaasi odaga la cunayay asagoon wax naxariisa muujinaynin. aad ayuu u naftuuriyay markaasna isagoo saa'id u dhool cadaynaya. waxay ahayd wakhtigii uu tegi lahaa. Stephen guriga ayuu ku laabtay isagoo raba inuu soo qaato furayaasha gaariga. markaasna waxaa ka soo horbaxday islaantii iyadoo u qabtay inuu odageeda yahay. arrintii ma ay dhammaatay Tomo ayay dhahday. Stephenna uma uusan jawaabin. ma hubtaa inuu haysto wadnaha ah inuu kula qolo xoogaa doofaaraad sida kuwa kale loo quudiyo si uu markaasi noo tuso inuu dhaxli karo beertan kadib markii aan dhimanno. Stephen meesha ayuu ku qalalay. aad ayuuna u naxay. dembi aad u weyn ayuuna dareemay. waxay qali lahaayeen xoogaa doofaara si ay markaasi u quudiyaan doofaarada kale. markaasna asaga ayay waxay u hadideyn lahaayeen beerta oo dhammi. degdeg ayuu gurigii kaga cararay asagoo diidan markaasi inuu dareemo waxa aadka u xun oo uu sameeyey. gaariga ayuu fuulay kadibna wuxuu arkay Blaka oo mar hore gaariga soo fuulay oo sugaya. waxaad igu kaliftay inaan markaasi dilo nin miskiina ayuu dhahay Stephen. midaas maan ogeen ayuu dhahay Blaka, laakiin waxaan ogahay inaad adiga dilaa tahay. qofna uma sheegi kartid ayuu ka bariyey Stephen. hawalwelin ayuu ku dhahay Blaka, aniga ila joog markaasna waxa aan kuu sheega samee markaasna nabad ayaad ku joogi doontaa. markii dib loo laabto waxaa la arkaa Stephen inay maskaxdiisa aysan fadhin. saas darteedna si fiican loogu baahan yahay in loo eego si looga ilaaliyo maskaxda dhibaatada soo gaadhay in ka badan. dhalada markaasi Stephen dhalada uu ku jiro u dhow ayaa waxaa ku jiray Blaka kaasoo markaasi dhoola cadaynayay kuna faraxsan inuu hadda si markaasi guula uu ku helay qof isaga caawin doona.